xaflad lagu soo dhaweynayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Cadaado sida faafaynta warkan uu inoogu soo diray wariyahayaga Xasan Maxamed Cismaan Daacad. xafladan oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay safarka uu madaxweynaha qaranku ku soo gaaray magaalada Cadaado ayaa lagu qabtay xalay xarunta madaxtooyada Galmudug xilli dambe. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxda ugu sarreeyay Galmudug, fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. gudoomiyaha ururka dhalinyarada Galmudug oo goobta ka hadlay ayaa madaxweynaha qaranka ugu baaqay in dhalinyarada Soomaaliyeed dowladdu ay gacan ka siiso dhanka shaqo abuurka. mudane madaxweyne anigoo ku faraxsan kana faa'iideysanaya fursadda aan haysto waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo dhibaatada hortaalla maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin caqabadaha haysta taariifka, waxbarasho la'aanta, caafimaad darrada iyo in dhibaato badan ay ku hayaan kooxaha sida qaldan u adeegsanaya. waxaana dhibaatadaasi inta badan ay soo gaartay dhalinyarada Soomaaliyeed burburkii dowladda markay baabaaday. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku booriyay dowladda federaalka in ay wax kala qabato baahiyaha ka jira deegaanka. Galmudug madaxweynihii maanta wuxuu soo maray jidkii dheeraa oo raaxada badnaa oo ilaa gaalka ayaa 4 sano soo socday. berritana 3 sano wuxuu sii socon doonaa insha Allah. awoodaha musaada musii socon doonaa 3 sano kale. madaxweynuhu horta nala arko waxaan ku noolahay sida ku noolahay aad baan ugu faraxsanahay inuu nagala qayb galo arko dhibtaan ku noolahay iyo sida aan ku noolahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu halkaas ka fikrad qaato dadka iyo dalka halka joogana oo hadda wixii ka dambeeya sidii hore si ka maaragtay firfircoon uu noola shaqayn doono. ugu dambeyn madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo socdaalkiisa ku macneeyay nabadda iyo dib u heshiisiinta ayaa waxa uu tilmaamay in baahiyaha ka jira deegaanada Galmudug oo ay qayb ka tahay wadada isku xiriirisa Gaalkacyo iyo Cadaado oo ay safar adag ku soo mareen ay Galmudug wax kala qaban doonaan, isagoona hadallo kaftan ah weydaarsaday madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle. saaxiibkay Xaaf wuxuu yiri ana meeshan ugu weyn ana ma daalin taas أنا مرخاتي كايو دالية شري مرة وذا سعودي يباوب كده جواي أبشر بخاري والله كفما يوحي ماذا هو المدارنته يقول فدار واقع. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa safarkiisa ugu ambabaxay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, halkaasi oo lagu sii dhameyn doono heshiisyadii Galmudug iyo Ahlu Sunna ay hore